hawshan inaan anu in ka badan ka hadlo weeyii inta aad ka hadlaysaan aan consensus-kayga ka sheego taasi waa taa waxaan doonayaa inaan u bushaareeyo oo kelmad bushaaro oo fiican aan u sheego walaalahayga Soomaaliyeed waxaan ahay nin Hargeysa ku dhashay magacaygu waa Roble Cabdi Muuse waxaan ahay Somalilander Soomaalinimada jecel oo ku faraxsan waxa iskugu mid ah Professor Afyar Cilmi Professor Bulxan iyo Xuseen Cabdi Xalane waa saddex nin oo iisiman marka inaan Somalilander ahay iguma kalifayso inaan nacabahay walaalahayga kale ee Soomaaliyeed marka hadiiba sawirkaasi ay iga qabaan dhalinyarta aniga ileeg ee gobolada kale Soomaaliyeed jooga waxaan doonayaa image-ka inaan kala gareeyo oo aanan codada aanan qabin waxaan saaka sawir la gelay oo isku soo faraxsanaa wasiir Maxamed Biixi Yunis wasiir Xirsi iyo wasiir Maryam Qaasin waxa saaxiibkaya in adeerkayna wasiir Saalax codadu ma qabo waan jecelahay waxaan si lamid ah u jecelahay abyan marka inaan Somalilander ahay ma runtii lama xiriidho in aan nacabahay inaan hostility qabo in ay jirto wax codada ama reservation oo aan ka haysto walaalahayga kale Soomaaliyeed marka maadaama aynu ka wada hadlaynay peace iyo inay Soomaalidu hoonka degan wax wada qabsato Somalilandnimadaydu dad kuma aha Soomaalida kale iyo Soomaalida kale baan ixtiraam mooyaane maanta qodbadihii baxayay qodbadaan ugu jeclaa inta ugu badan qancisay waa qodbadii Mustafa Cagjar marka biasness iyo subjectivity ay Somalilandnimadeedu ku hayso Soomaalida kale ma jirto taasi waa taa maadaama aan mustaqbalkaana aan aaminsanahay asxaabta kalena aan wada leenahay mid baan isweydiinaya maxaa muqaddasa ma waxa muqaddasa midnimo indhalaana oo waa in la midoobo in la yiraahdo ma waxa muqaddasa goosasho garqaadasho la'aana oo ana waan goosanay in la soo taagnaado mise waxa muqaddasa inaan anna nolol iyo karaamo helo oo ay mustaqbal baan rabaa waa run 30 jir baan ahay dawladda ictiraafsan ma haysto inaan kayla midkee Muqdisho jooga isna laakiin waa 30 jir isagu nabadgeliyo dawladba ma haysto oo intaan haysto mana isaga u janaalow ah isagu inta xataa ma haysto marka ma nolol iyo karaamo aanu wada baahanahay mise muqaddasiye kale oo aanan noloshiyo karaamada kaga wada hadlayn ayaanu wada baahanay taana ma lahayn inuu frame gareyno aad ma ayaa muhiima su'aal fiican weeye Cabdixakiin ana maadaama aanu mustaqbalkaana aan in yarida in ka yar intii daawadayaasha okay waqtiga laakiin waayo walaal waa sax waan kugu tixgelinayaa waxa kale oo doonayaa inaan yadna taabto siyaasiga Soomaaliyeed ee aaminsan inay Somaliland Soomaaliya ka mid tahay ee dastuurkiisa ay ku qoran tahay Soomaaliyada oo maamulaa inay tahay Kismaayo ilaa all the way to Saylac waxaan yar qaadan waayaa haddana aaminsan maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo professoradiina badidooda Soomaalida ee aaminsan maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadda Hargeysanayna ka mid tahay aaminsan tihiin waa 15 May waa maalintii SYL which has nothing to do with me aniga Ingiriis bay gumaystay Ingiriis SNL bay SNL geesiyaal kama aha xaqaaga maalintii SNL la sameeyay ma taqaanaan marka 15 May karaamada ay SYL oo Talyaani xorriyadda ka qaadatay ay dheer tahay SNL oo Ingiriiska xorriyadda ka qaadatay iyo karaamada ay 15 May ku tahay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee haddana aaminsan tahay inaad ugu maamusho ugu madasho waan garan waayay waxaan garan waayo kale war haddii la isku quuri waayay ama hatiin haddii la isku quuri waayay taariikhaha wanaagsan ma waxa la isku quuri waayay dhibaatada haddaan idin weydiiyo Soomaaliya goormuu dagaalka sokeeya ka bilaabmay waxaad odhanaysaa 1991 aniga laakiin hooyaday anoo jira 2 bilood waxay qaxday 88 May 31st ay Hargeysa ka qaxday diyaarad qixisay marka dagaalka sokeeya maalintii Muqdisho ka qaraxdo bilaabmay mise maalintii ummad calanka aaminsaneed maalinta oo aan goosanani ay qaxday ayuu bilaabmay marka maalintii dhalinyarada haddaan dhaafo xitaa dagaalka sokeeyo goortu qarxay oo dhibtii iyo heshiis kuma nihin oo sheerir kuma nihin waan ka bixi walaal inaan cuqdadi jirin halka ugu dambeysaan idin geeyni anigu Roble Cabdi Muuse Maxamed baa la yiraahdaa adeerkay waxa la yiraahdaa Maxamed Muuse Maxamed liisaska officialka ee yaalo wuxuu ka mid yahay dadkii lagu laayay xasuuqii Jasiira anigu laakiin Roble anoo haddaan Muqdisho yimaado meelaha aan ugu jecelahay inaan tagan ku soo dabaasho een sawir ku soo galo waxa ka mid ah Jasiira oon tagaa marka
inaynu sab-ataaj garayno oo dee khalad iska fahmaa ma fiicna inaan somalilan aaminsanahay lama xidhiidho cuqdad lama xidhiidho cid baa cidlaysay xitaa haddii apologieskii imika laga wada hadlayo xilkii ka hadlayeen la bixiyo weli waxaynu u baahanay inaynu ka wada hadalno maxaa mustaqbal san saynu ku heli karnaa halkee barwaaqa taalo dood saasoo constructive aynu u baahannahay midna waan codsanayaa ugu dambayn anuu ma aaminsani inanka jigjiga joogaa inuu necab yahay ma aaminsani inanka jabuuti joogaa inuu necab yahay ma aaminsani inanka muqdisho joogaa inuu necab yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo dadka narrative-ka haya please dhalinyarada aad gelinaysaan qofka hargeysa joogaa Soomaalida kale uu necab yahay naga joojiya ma necbine on top of that ma necbin waa qadiyad balad kale oo baanu aaminsanahay Soomaalinimaduna inaga dhaxaysa waad mahadsantahay Cabdi Xakiim wa salaam alaykum